bangiga dhexe Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhawaan markale ka digay in ku sirmaan shirkadaha sheeganaya inay ka shaqeeyaan suuqa sarifka lacagaha qalaad ee forex waas oo faa'iidooyin badan ku soo xirigelinaya macaamiishooda. Saraakiisha dawladdu waxay noocaas ganacsi ku tilmaameen bond schemes kaasi oo ah in lacag laga qaaday macaamiil la siiyo qof kale iyadoo lacagaha lagu maamulayo ay ku xiran yihiin inta macaamiil ee cusub mar waliba lagu qancinayo inay ku soo darsan ganacsigan oo ku saleysan hab khiyaano ah sida ay saraakiishu sheegeen. Bangiga dhexe Soomaaliya waxa uu qoraal u soo saaray ku amray in la joojiyo shirkadahan isla markaasna koonadooda la xiro. Hase yeeshee baaritaan aan sameeyay waxaan ku ogaaday in shirkadahan si shaqeeyaan inkastoo laba farimood oo kala duwan ay ka soo baxayaan bangiga Soomaaliya isla markaasna ay muuqato inay iska dhigatirayaan amarka bangiga dhexe. Haddaba maxay yihiin shirkadahan, sidee ayay u shaqeeyaan, ma haystaan sharci, sidee ayay ku kala gudbiyaan lacagaha, lacag intee leeg ayaa ku jirta suuqan, maxay yihiin waxyaabaha sharci darrada ee loo ka shakisan yahay inay ku lug leeyihiin, maxaa ka jira in faa'iido badan ay macaamiishu u sheegeen ay dhab ahaan tahay mid ka soo baxday lacagta ay maalgashteen. Waxaan sidoo kale wareysanay mas'uuliyiinta dawladda kala duwan oo ay ku jiraan kuwa amniga iyo kuwa lacagaha. Waxaan sidoo kale wareysanay dad lacag gashtay shirkadahan forex iyo waliba kuwa ka shaqeystay shirkadahan iyo khubaro madax bannaan. Jawaabaha soo baxayna waxay muujinayaan in shirkadahan ay ku shaqeeyaan qaab uu mugdi ku jiro iyo in lacagaha lagu kala wareejiyo qaab aan sharci ahayn. In shirkadahan aysan u sheegin macaamiishooda in lacagaha ay siinayaan aysan ahayn kuwa ka soo baxay lacagtooda oo ay geliyeen ganacsiga, balse ay yihiin lacago laga qaaday macaamiil kale cusub, iyo in shirkadahan ku kala wareejiyaan lacagahooda aysan ku wargelin dawladda Soomaaliya taasoo ku qasbi karta inay la macaamilaan dad aan sharciyad u haysanin kala wareejinta lacagaha. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya waxa uu madax ka yahay macadka iyo maamul maareynta dadweynaha ee Simbam oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. runtii waxaan loo yaqaano forexka caalamka oo dhan ayay ka jiraan, macnaha wadan gooni ah kama jiraan maadaama internet based ay tahay. wadan walba oo dunida kamid ah shirkadaas wuu la xiriiri karaa, laakiin waxa muhiimka macnaha waxay tahay shirkada joogta Soomaaliya ee tiraahda waxaan ka ganacsadaa arrimaha lacagaha ama waxaan ahay dalaal lacagaha ah, waxaa loo baahan yahay in ay rusqad ka haystaan wadanka ay joogaan. sidoo kale marka waxaa badanaa laga rabaa shirkadahaas noocaas ah inay maraan hanti dhowr oo hubinaya inay lacagahaas si fiican u maamuleen. sidoo kale waa inay u sheegaan dadka ay lacagaha ka qabanayaan khatarta ku imaan karta. Shirkadahan waxa ay soo shaqeeyeen tan iyo sanadii 2018. saraakiisha dhinaca dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo khubarada dhinaca maaliyadda waxay aaminsan yihiin in ilaa 300 milyan oo dollar inay ka aruursadeen macaamiishooda kala duwan. Ilaa xilligaasi waxa ay sheegeen saraakiishu in lacagahan badankooda waddanka ka baxeen sida ay waddanka ugu soo laabtaan oo ay adag tahay maadaama lacagahan ay iska shaqeeyeen gudaha dalka Soomaaliya. Dawladda Soomaaliyana ma xiri kartaa akoonnadaasi sababtoo ah dibadda ayay ku yaalaan, waxay xiri karaan oo kaliya akoonnada ka furan gudaha Soomaaliya. shirkadahan waxa ay ballan qaadeen inay faa'iido ku bixinayaan 35 maalin gudahooda. lacagaha faa'iidada ah ee loo ballan qaaday macaamiisha qaarkood waxa ay gaarayaan ilaa iyo 70% ugu yaraanna 20% ama intuu dhaxaysa. mid ka mid ah saraakiisha dhinaca maaliyadda waxa uu inoo sheegay in shirkadahan qaarkood ay shaqaalihi ka kaxisaan bangiyada gaarka loo leeyahay, qaarkood ay si ay uga shaqeystaan isla markaana ugu qoraan macaamiil cusub. fariimaha ay gudbiyaan macaamiisha cusub si ay u kasbadaan waxaa ka mid ah toddobaad kadib in la xiraayo qabashada macaamiisha cusub. dadkaas faa'iido badan helayaan haatan waxa ay difaacaan shirkadahan iyo adeegga ay bixinayaan. shirkadahan forexka ayaa la sheegay inay bartilmaameedsadaan dadka bulshada magac ku dhaxla si ay u noqdaan safiiro u dooda. qorshahan ayaan istaagin marba haddii ay helaan macaamiil cusub iyo lacag cusub oo soo gasha shirkadda. walaaca ugu weyn ee qaban saraakiisha amniga ayaa ah in lacagahan laga aruuriyay dabaqada ugu hooseysa ee bulshada sida haweenka dukaanleyda iyo dadka waratada ah iyo waliba dad lacago ka soo deensaday bangiyada. Sayid Cali Qaasim Maxamed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha mid ka mid ah shirkadaha forex ee ka howlgala magaalada Muqdisho. $1 ayuu rabaa qofku inuu loo maalgeliyo, waxa ku soo dara 500 ama 200 ama 300 qoladaas sidii ay service u qaataan ay ku xiran tahay. $1,000 waxaa laga yaabaa 30 beri ama 35 beri inay ka siiyaan lacag faa'iido ah oo qolo walba ay ku xiran tahay, laakiin faa'iidada ay bixinayeen inta ilaa 300 400 500 200 inta waa soo ay bixinayaan. shirkadahan ayaa sheegay inay macaamiil la leeyihiin dalaaliin joogta jasiiradda Qubrus iyo wadamada Malaysia iyo Turkiga
kuwaas oo u furay bar internet ka mid ah ay ku sarriftaan lacagaha. Hase yeeshee lacagaha ay sarrifaan waa in dibadda waddanka looga bixiyaa, sidoo kalena faa'iidada ka soo baxdaan intay doonto hala ekaatee waa in waddanka la soo geliyaa iyadoo aan lala socodsiin dowladda Soomaaliya islamarkaasna aan laga bixin wax canshuur ah. Sayid Cali Qaasim ayaa marka la weydiiyey sida lacagaha ay dadka ka qaadan ay u kala gudbiyaan. waxay ku xiran tahay qoladaas ay u furan tahay farsamooyinka ay isticmaalaan. haddii lacagtan dibadda ka dibdoosigirayaan way samayn karaan, haddii gudihii ka dibdoosigirayaan laakiin way ku adkaa kartaa oo waddankanaga dareemi kartaa central banki iyo mashaqa regulating ku sameynaya bangiyadii oo bangiga xataa hadduu ku yaalo mastercard isticmaalayo muqdisho ama Soomaaliya uu ku yaalayo waxaa laga yaabaa lacagta laga dibdoosigiraynayo inay xadidan tahay ama caqabad lagala kulmo. marka inta badan farsamooyin ay isticmaalaan oo lacag inta ay ku hayaan waxaa laga yaabaa inay xagga ka amraan oo dad ay ku kala wareegaan oo xagga laga dibdoosigirayo. marka farsamada waxay ku xiran tahay iyo istaraatiijiyadda ay isticmaalayaan qoladaas oo u tiran yahay agensiga ama xaruntaas u furta dadka inay maalgeliyaan. waa gartay. su-aashaydu meesha ku qotanta waxa weeyaan bankiyo leh corresponding account ama bankiyo ay la macaamilaan oo caalamka ah, lacagaha la isku mariyo miyaa jira mise bankiga dhexe Soomaaliya la maraa mise bankiyo gaara la maraa mise xawiladaha la maraa? taas waytaan rabina faham. Haruno bankiga dhexe harto lama maro oo lama mari karo. bangiyada dhexana oo bangiyada aan dhahay localka oo magaalada Muqdisho ku yaalana way iska xadidan yihiin, lacag in la mari karo aad iyo adag tahay oo waxaa laga yaabaa lacagtooda inay ku ogol yahay oo lacag badan aada ka dibdoosigari karin. marka swift iyo number in la isticmaalana oo lacagtan lagu wareejiyana caqabad lagala kulmo. marka laakiin saan kuu sheegay mar walba waxaad u baahan tahay saacidaad ama dawladda inaad ka heshid ama dad aad adeegsatid. laakiin sida aan kuu sheegay waxay ku xiran tahay xaruntaas dadka u furan tahay istaraatiijiyadda marka hore ay ugu talageleen lacagta inay ku dibdoosigirayaan. way haystaan already wax ay sii degsadeen waaye, wayna ka bixi karaan, wayna heli karaan meel ay ka lacagtaas ay marsiyaan oo software la isticmaali karaa jiro. laakiin waxay ku xiran tahay qofkaas markii hore soo ugu diyaar garoobay iyo caawinaad inuu markii hore uu sii samaystay oo lacagtaas ay ku diri karo ku gaarsiin karo brokerkaas. dhanka kale gudoomiyaha bankiga dhexe Cabdiraxmaan Cabdullaahi ayaa goor hore ugu warramay VOA sidoo uu arko shirkadahan. anagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad, waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bankiga dhexe, ogolaansho ka haysta bankiga dhexe. ma jiro bankiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado. cid kasta yihiinba waa dad uun dee qaab khayrul sharciga ku shaqaysanaya. dabeed si xilka naga saaran inaan dadka Soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin. haddii aad lacagtaada sarrifayso suuq ka sarrifanayso waa arrin adiga ku gaara. haddii aad lacag dad kale sarrifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashi jirin oo shati aad u haysataa jirin oo suuqa aad ka ganacsanaysa lacagta ka qaadaysa yahay suuqii dee bankiga dhexe mas-uulka ka ahaa hab maaliyadeedkiisa, halis baa ku jirta badan. marka laga reebo in qofku dee si khayralcaaqli khayralsharciga ku shaqeeyey, haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxbaa la helayaa, faa'iido baad ka helaysaa, lacagtaada keen. waajibaadka nasaaran bay kamid tahay inaan kadib. waxaan sidoo kale la hadalnay qaar ka mid ah macaamiisha lacagaha ku darsaday shirkadahan, waxaana dadkaasi ka mid ah Cali Cabdullaahi oo maal gashtay 2 shirkadood. aniga markii koowaad waxaan ku darsaday 300 oo lacag. dawladda hadalkeeda waad maqashay, waxay tidhi shirkadahan akawnadoodana waa in la xiraa, lacagahoodana waa in maaragtay la joojiyaa. waxayna sheegtay dawladdu shirkadahan inaysan wax sharciya ka haysan dawladda. hadalka dawladdu wax kalsooni darro ama kugu ridaya aad ku qabto shirkadda mise kalsoonida aad ku qabtay shirkadda waxba iskama bedelayaan? hadalka dawladda waxaan ka maqlay macnaha waxaan kalsooni darro geliyay waxaan maqlay idaacadda wada baanqaasiyay inay ku qorneyd dad soo cabsay oo mataqaana oo lacagahoodii waayey
oo khasaaro ku dhacday ilaa aniga labadaas shirkadood saddexaas shirkadood weliba hubaan 3 mar baan ka qaatay mar haddii aanay ayaga lacagta loo dhiibtay aanay dadkii dhibaatay anigu hadda ma arko midda dawladda waxaa caqligalayna maaha saasaan isleeyahay anugu kulley ma laga yaabaa in lacagahan wareegaya ee adi maanta lagu siinayo ay yihiin lacago laga soo qaaday qof kale oo Soomaaliya lacagta adi bisha laga qaadana qof kale un baa la siinaya marka ma laga yaabaa lacagahan inay iswadi waayaan sababtoo faa'iido aad u badan weeyaan oo dad badan oo dhaqaalayahan ay leeyihiin ma sii socon karto macnaha waxaana suuragal ku noqonay hadda midba shirkadaha midda ugu horreysay 8 bilood ay hadda shaqaynaysaa marka 8 bilood waxaanay lacag qaadin 4 bilood oo kamidana lacag baanay qaadin marka ma suuroobi kartaa adiga ma kula tahay qofkii lacagta inuu macaashna qaadanayay haddana oo sii qaadanay ninkii lacag kale ma qabanayn 8 bilood oo haddana ba kagaalahay kuga dirtan wax bishii 8aad baa lacag laga qaadanayaa marka ma suuragal ma qofka inuu qofkii lacagtii inuu ku siinayo mar walba khubarada suuqyada baarista ayaa waxa ay sheegeen in faa'iidada laga heli karo suuqan aysan ka badnayn 4% markii ay suuqyadan ku shaqeeyaan heerka iyo sharciyada caalamiga ah oo aysan gaarin 4% tan ay sheeganayaan shirkadahan saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in dad badan lacagooda la lunsaday balse aysan ku baraarugsanin haddaba sidee ay dowladdu u sharciyeyn kartaa shirkadahan Sayid Cali Qaasim ayaa la wadaagay su'aashaasi number 1 face ay soo dhawaan dad tiiga ah oo dadkan xoolahooda si fudud ku qaato sumcadana ugu ciyaaro si aysan u imaan waa in loo sameeyaa shuruuc kulley dowladda taas looga baahan yahay waa in u sameysaa dowladda shuruuc dadkaas aysan si fudud dadka xoolahooda qaab aysan ula dhuuman ayagana loogu ogolaadaa inay dadkii una faa'iideeyaan kana faa'iideystaan runtii dhalinyaro badan oo maanta tahriib lahayd dhalinyaro badan oo maanta waxbarasho la-eed haddii ay waxbarasho ka helaan ama ay fursad u heleen inta lacag ku darsadaan inay waxna ku dartaan kana noolaadaan waa arrin wanaagsan haddii dhalinyaro meel wax ka bilaabaan la ay barnaamijka inta barteen ay ku shaqaystaan waa arrin wanaagsan weliba waxaa aada u fiicnaan lahayd in la heli karo qaab fudud oo dadkan lacagaha markii ay faa'iidaan ay kusoo wareegsan karaan sida tusaale kale waddankan Kenya kale barnaamij waxaa jira qofka isla markiiba faa'iido oo lacagtiisa kala bixi karo lira M-Pesa laakiin Soomaaliya waxaa laga yaabaa in wadankii maadaama central bank uusan hadda iyo ama central bank uu shaqeynaa laakiin waddanka xayiraada saaran oo waa ognahay maanta lacag haddii soo gelay waa wax kontaroolan marka oo xawilaadihii iyo qololba dhibay ku qabaan maanta lacag idin magaalada Muqdisho ama Soomaaliya inay soo gaarsiiyaan